salaanta aad qof salaantaa waxay qofka ku reebaysaa xusuustaana waxaa ka dhalanaya farxad iyo xiise uu qofkaasi u qaado la kulankaaga. halkan waxaan idinku soo gudbinayaa qiso yar oo ku saabsan gabadh ay nolosheedu ku badbaaday salaan ay cid salaami jirtay ee daawasho wacan. gabadh ayaa ka shaqayn jirtay warshad hilibka lagu farsameeyo. maalin maalmaha ka mid ah ayaa sidii caadada ahayd waxaa dhammaaday saacadihii shaqada. kadib waxay gashay qolka lagu qaboojiyo hilibka si ay u soo kormeerto, balse nasiib darro albaabkii ayaa si kadis ah isu xidhay iyadoo gabadhiina gudaha ku jirta. way qaylisay, albaabkiina way gargaraacday, laakiin dhammaan shaqaalihii way wada rawaxeen, mana jirin cid bannaanka ka maqli kartay qayladeeda. waxay isu diyaarisay geeri kana quusatay nolol, maxaa yeelay qolku aad buu u qaboobaa, suuragalna may ahayn inay ku noolaan karto ilaa berri oo ah xilliga dambe shaqada la gelayo. 5 saac kadib haddii ay barafowday oo ay dhimashana ku dhowday, waardiyihii warshadda ilaaliyaha ka ahaa ayaa si lama filaan ah albaabkii uga furay. gabadhii waxaa mucjiso ku noqotay nasiib wanaaggeeda iyo siday dhimashada uga badbaaday. markay qolkii ka baxday, xoogaa hadday iskululaysay, waxay waardiyihii weydiisay sababtuu halkan u yimi ee uu albaabka uga furay isagoo waqtigii shaqadu dhammaaday. wuxuu ku jawaabay, waxaan warshaddan ka shaqaynayay 35 sano, boqolaal qof ayaa halkan yimaada kana taga maalin kasta, balse adigu waxaad ka mid tahay dadka tirada yar ee subaxdii markay shaqada gelayaan salaama, galabtiina isii nabadgeliyeeya. salaantaadana qalbiga igu dega, waxaana ku dareemaa inaan muuqdo. maantana sidii caadada ku ahayd waad salaantay, balse galabta waxaan xusuustay inaadan isii nabadgeliyeyn, waana sababta aan u go'aansaday inaan warshadda gudaheeda kaa raadiyo. inaan ku soo raadiyana waxaa igu khasbay salaantaadii iyo nabadgeliyeyntaadii aad caadada u lahayd, sababtoo ah waxay igu reebtay saameyn iyo inaan qof jira ahay. haddaba walaalayaal, baridada oo la joogteeyo waxaa ka dhalanaya jacayl iyo badbaado. nebiguna waa kii lahaa naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, xaqa uu muslimku muslim kale ku leeyahay waa 5, waxaana ka mid ah salaanta oo la faafiyo ama laga celiyo qofkii ku salaamay. هل تعلمون تحيتي عند الحضور إليكم؟ أنا إن رأيت جماعة قلت السلام عليكم.